Assalaamu calaykum. Ilaahay ayaa mahadle oo Soomaali Maxamed siiyay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. Haddaba biyaha badda waxaa ku jira qiyaastii 35 gram oo cusbo halkii litir oo biyo ah, sida lagu sheegay daraasado badan oo la sameeyay dhinaca cimilada adduunka. Haddaba biyaha badda ee milixda leh waxa ay leeyihiin faa'iidooyin dhinaca caafimaadka, inkastoo la xuso haddii biyaha badda si xad dhaaf ah loo cabo in ay keeni karaan dhibaatooyin dhowr ah. Sidaa daraaddeed mowduuceena ayaa maanta waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka caafimaad iyo waxtarka ay leeyihiin biyaha baddu. haddaba daawada isticmaalka biyaha badda waxaa loo adeegsadaa nooc ka mid ah daaweynta oo loo yaqaan thalassotherapy. qiyaastiina qarniyo ka hor ayaa markii ugu horeysay waxaa isticmaalay dad Masriyiin ah, isla markaana isku daaweeyay. waxyaabaha ay iskaga daaweeyeen waxaa ka mid ah finanka maqaarka iyo infekshanka dhagaha. sidaa daraaddeedna daraasad caafimaad oo ay sameeyeen machad caafimaad oo ku yaala dalka Australia ayaa sheegay in dabaasha oo lagu sameeyo barkada ay ku jiraan biyo cusbo leh ay saameyn wanaagsan ku yeelato daaweynta finanka jidhka iyo weliba nabraha maqaarka iyo infekshanka dhagaha, gaar ahaan carruurta da'doodu ka yar tahay 17 sano jir. daraasadan ayaa sidoo kale tilmaantay in isticmaalka ama ku dabaalashada biyo cusbo leh ama biyaha baddu ay labadan arrimood ee dhinaca caafimaadka ay hoos u riday 50%, gaar ahaan carruurta. daraasadu sidoo kale waxa ay sheegtay in dabaasha biyaha baddu ay nadiifiyaan maqaarka iyo sanka iyo dhagahaba. sidaa daraaddeed noocyada ka mid ah cudurrada maqaarka ku dhaca ee keena bararka, maqaar cuncunka, cambaarta ayay biyaha baddu daaweeyaan. ugu dambeyntii warbixin ay daabacday jariiradda loo yaqaano Oceanographic oo laga leeyahay waddanka Japan ayaa soo bandhigtay in biyaha baddu ay daaweyn waxtar ah u leeyihiin xanuunada ku dhaca maqaarka, waxaanay xustay warbixintu in biyaha baddu ay bi'iyaan ama ay daaweeyaan cuncunka iyo xanuunada maqaarka iyo cambaarta weliba.